adna sibiq ku dhaafiyo sidee tahay ma adaran inta soo dhawaatay ad iyo aad baan idin salaamayaa waa radio timadharaadi leh wareeg shanta lix ka dhig hello may maqlaysaan kusoo dhawaada radio timadhare assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mar labaad waxaan idiin soo dayn doonaa riwaayado tusaa waxyaabaha arrimaha bulshada ka hadlaya talooyin iyo warbixin haddii aad ka heshaan clipkaygan sii share gareeya ama bulshada la sii wadaaga waxa aniga ideadeeda la tahay in ay wax isu sheeg tahay oo dad badan ay kuwaana qaadan doonaan insha Allah bismillaahi kariim caaw maanta waxaan ku hadli doonaa walaalayaal qodobada dadkan Yurubta ku nool ay naga cawdaan ee bulshadana nuunimi marka hore bulshadan wadankan ay wadamada Yurubta soo galay Sweden Denmark Altan dhulkan waxa weeyaan wadan cimiladoodu xun tahay warshadale cimilo fiican aan lahayn inta cimilo iyo hawo iyo laga hadlaa hawadii fresh hadii qoraxdii ma jirto marka walaalayaal waxyaabo badan xagga ku isticmaali jirnaa iyo halkan aan ku u fiicnay in lagu isticmaalo qodobkan maanta marka walaal ka hadlayo waxa weeyaan alaabtan Sacuudiga laga keenay waa bilaa magac wax sameeyay lama garanayo oo wax aad u riban concentrate weeye waxa weeyaan aad baa la isugu buufiyaa had iyo jeer kaasina gabigiisuba casaan buu noqday kan waa madow Saudi Arabia ba ku taala aad iyo aad buu yahay maxay hayday aad iyo aad buu yahay u adag yahay marka waxay barafuunkan aan ismarino had iyo jeer inta Saudi Arabia ba jiro masaajidada saa la isu mariyo beetana saasaan soo qortay iska mariyaan dadka wadada ama mid baba kula soo wareegay masaajidada la soo wareegay maalmood waan ismariyay mid baa mariyay waan maydhay iska maydhay saddex ishu iga baabiyo xitaa mal shirku kale halkaas xitaa ka soo uray marka barafuunka noocan dadkan waa xiran tahay wadankani barafuunada noocan ee aad ka u riban ee hadii aad elevator gasho qofkii ku haray elevator baad soo galaysaa adigoo taabtay elevator oo xafad socod galaysaa barafuun baad jiq qof baad yimi Soomaaliya waliba dhalinyarada yaryar halka ku qortay uma badna laakiin dadkeena waaweyn ayaa aad isticmaala meelaha transportka iyo basaska iyo xasin waa la gacawda meelaha shaqada waa la gacawda anigu iskuul ba ka shaqeyn jiray meelaha badan ka soo shaqeeyay iskuul ba ka shaqeyn jiray waxa joogay laba hablood oo yaryar Ana Marie iyo Yulia ayaa kala oran jiray labada hablood barafuunka haday uriyaan marka dhalinyar ilaa caruurta yaryar waa loo sheegay meelan studio waa loo sheegay waxa loo jiray Ana iyo Yulia hadda aragtaan iyagu meelaha yala soo qaad haday barafuun ur kana way dhimanayaan haday barafuunkan Swedishka uriyaan ama isku shuman dadka ee ladka ay uriyaan xanuun bay ku leeyeen way suuxaan waa aragteen meelaha meelada doogasyada nootarka ama loosku waa ka madnooc barafuunkan waa lamid walaalayaal dadkeena Soomaaliyeed aad bay u isticmaalaa barafuunkan walaalayaal barafuunkan ajiibka walaalayaal joojiye isneela joojiye ummadda oo dhan kol hadda bulshada ka dhex shaqaysato ka dhex qaraabatood nin meel walba galato warshada ka shaqayso xagan ka shaqayso tanka dadka bulshada oo dhan baad dhex galaysa hadalaynta ugu badan Soomaaliya marka ay ku soo dhacdo waxa weeyaan waxyaabo badan weeyaan laakiin kani waa qodobka koobaad ee koranaya dadku Soomaalidu waxay isku buufiyaan waa maxay iyo koranaya xeef marka saad oranaysaa anigu wax kale ugu jawaab hadda idin ma sheegay waxaan u jawaab waan caaya idinka Greece baa idinka soo wareeyay balaaye basmayda tan laga malaha laakiin walaal waxa idin sheegaya bahalkani waa khatar maalidood waxa nin baa iga horeeyay bahalka yar bula soo ismarmariyay hindhisu ku waashay dis ani isaga isku qufacay isagii baa isku hindhisaya hadhiski waa ismariyay marka walaalayaal barafuunkan bahalka yar barafuunka la yiraahdo ee aad marsanaysaan totally joojiye tusaalan idin siinay walaalayaal kaas waxa la yiraahdaa meesha qashinka ama bebash kooriyeedka guryihiina waxa ay muulmuulan baayay waxa soo muulmuulan baayay arsu balart su sirba biyo suga ilaa halkaas macaankii aan udgoonka iyo sawiraya walaalayaal inta saaw qaataan walaal inta saaw mar qaataan waxa qaanada kugu jiro dhan saamar ugu sii wada daay walaal qashinku snell bahalkaas sanadkan gudihiisa yayn qof Soomaali oo barafuunkaas ka soo hadaydan iska deynay dukaamadan 500 600 way $100 inta yar urursato kan qafiifka عرفتي سوى حوالي بلومر وحوريا وبح
mid wuxuu uraya 150 urood waxa jira 300 urood 300 urood mid waa gaar mid baa عرفت الروكا مد بقى وحبا كان لكن وحلا لو وحي عرف هاي بقى لسه شوبا ده النوكليير بالنقطة إذا كنا هالصوحنا ده كي اللي شوفنا هي الصوحين عروض هيرنا وضنا كان نتذكر نقول مياني حساسية دي وحبا اللي رتبت كلية تذكر أبدي مني سنيلا سيدا وبسيو ده داي هالمر وضنا بتنا هسيه جيجيني طلعك بدنا ما هو سعودي قال عادة كان سعودي جاي إمارات خلاك هنا إنما باسيني سعود إنك تشوفيه intaas waa radio timadare snella clipkan waa yeti fiktig baaniga ila tahay bulshada reaction-ka naga soo noqonaya waa waxaas si share gareeya isu sii gudbiya sanadka ku xiga insha Allah bidnilaahi kariim 2011 oo oday weyno qijaabkiisi wixii alaabtiisi sito shadadiisi iyo macawstiisi sita oo aan waxba ka wareyn waynu soo galaa meelaha bulshada iyo maqaaxiyaha xaga kale ma taabanay dhammaan dadka waaweyn ha joojiyaan snella naga joojiya baalka inta aduguna hindisa ku waalay dhista gurlay hadda imka karantiin ba weyn hadaad hindisto barbaalka soo maraysa waad ka hindisaysaa mar kasta waxaan idinkaga tegayaa shisha garay baalkii ma ursaday shisha garay soo sheega